بسم الله الرحمن الرحيم. أول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا حاجة أوفيشال ورك أودن بي سبورتس محل يير أرنت إساق أو ويلي لسمري لا إيه وابحا إيما بحيس قيمي أودن بي إن هذا كبد عقل ليفربول صوبا ديق دونتا كريستيانو رونالدو لاتي لو سنة كور مانتو أوكال محودون ذاك قبصده كوبوريستيسي النصر أسيغو دير لو بقول لواتني كوكولن imase gool ayuu dhali meeqa ayuu caabiyey muxuu ka qabsaday waa bilaa horyaal sidoo kale Bayern Munich xidigaha uu suuq sareeyo qiimo maanta hadii way baxaan la dhahayo yaa ugu sareeyaa ku xigo wararkii ugu dambeeyay Luka Modric oo amaan xidig ka tirsan naadi kubadda cagta Real Madrid waa kuma xidigaas Marcus Rashford oo sheegay daaficii ugu adkaa oo la kulmay English Premier League intuu joogay sidoo kale wax walba ku saabsan suuq kala iibsiga ciyaaraha la filayo shooga ku imaaday naadi kubadda cagta Arsenal muxuu yahay shoogaas ku soo dhawaada xaji official fadlan subscribe noo saar laga dhigeen share garay waa ka imaadeen la daawashada muuqaalkan welcome soo dhawaada saaxiibayaal wararkii ugu dambeeyay ayaa hal iyo laba ka taabo doona insha Allah haduu Ilaahay qadaro ninkii Cristiano Ronaldo ayaa intaas oo ariniga ku soo dhawaada muuqaalka doo ku cusub yahay janaalka ku yahay please subscribe noo saar muuqaalkan like noo saar si share garay oo la wadaag asxaabta jecel inay daawadaan ama maqlaan xoog sportska inkoo update oo sugan insha Allah Cristiano Ronaldo ayaa maanta ay tahay maalin weyn maadaama ay ku beegan tahay 22 sano koor maalintii ku beeray u dheelista xulka kubadda cagta Portugal muxuu ka qabsaday waa koor inta aan u guda galin naadi kubadda cagta Al Nassr ayuu hadda joogaa waxa leeyahay Al Nassr soo ugu beeray wuxuu qabsaday leeyahay 112 kulan ayuu dheelay sidoo kale 109 goolna waa uu siiyay kulamada uu dheelay waxa ka badan goolasha uu siiyay naadiga inaba caadi maan 22 sano ka hor maanta oo kale Cristiano Ronaldo ayaa helay safashadiisii ugu horeysay xulka Portugal asigoo u dheelay haatan 230 kulan halka asigoo dhaliyay 138 gool 45 kalena caawiye ka ahaa Cristiano Ronaldo inaba caadi maahan واحد يكون سامنت بدن هذا سعودي بروليج كل كمكو عيار على النصر واحد تاير ريال ودوس على داعي تويابه ونمبر كتضوات من جوفنتوس ريال مدريد إلا البرتغال وطان إنه عادي معهن نكانوا يوروب مركزيتي لا وحول بعيوك قبس الله سيدا كله وحديها وحطرتهم كل جرا إنه النقض حديقة وصف الشدب بدن دنيا ayuu rabaa inuu meel sar ka gaaro kaliya hadda waxa ka horeeyo Fabio xidig reer Brazil 391 kulan ayuu dheelay sidoo kale Butter Shilton ayaa asiina 390 kulan saftay halka Bastuk oo Paul Bastuk oo 284 kulan saftay halka Cristiano Ronaldo booska afraad uu ku jiro saftay 283 hal kulan haduu safto oo kulan kale oo safto wuxuu qaaranka saddexaad ka baxsana Paul Bastuk marka waa arki doona meesha ku dambeey doonto inaba caadi maahan marka Ronaldo waa kaya ti Al Nassr ti xulka sidoo kale kulamo uu safashada badan dunida meel fiican ayuu kaga jiraa asoo xulkiisa u qaaday Euro 2016 sidoo kale laba koob oo National League sidoo kale waxa kamid ah wararka Luka Modric oo ama kala dul dhacay Kylian Mbappe asigoo dhahay numberka 10aad meel qiimo leh ayuu ahaan iga joogaa Real Madrid waxa fiilay inay meel ay dhigi doonto hadalkiisa inay ku jirto loo fahmay laakiin waxay siiyeen oo dhahay Mbappe waan xidig cajiib ah oo waxtar leh waana dareemi doonaa numberkaas in qof muhiim ah oo qaatay marka qaab oo sarbeeyo ayuu sheegay shot naadi kubadda cagta Arsenal ayaa dhaawac ka soo gaaray xidig muhiim u ahaa safka macna Arteta Kai Havertz oo dhaawac dhanka jilibka soo gaaray ayaa la sugayaa natiijada saxda ee dhaawaca wuu leeyahay bilooyinka soo socda dib uma arki karaan Arsenal iyo Arteta ayaana ku amray naadiga in loo keeno bedelka Kai Havertz oo dhaawac soo gaaray kuma tashakar ayuu leeyahay kaliisa asigoo laga yaabo kulankii furitaanka ee English Premier League inaba caadi maahan Marcus Rashford oo la weydiiyay xidiga daafac uu adag oo ka hormaatay inta abnan dheelaysid Rashford ayaa yiri yes waa jirtaa waana Van Dijk ayuu yiri ninka uu saameynta badnaa ee daafac dhibaatada ugu badan kala kulmay marka Van Dijk ayuu dhahay xidigii uu adkaa ayuu ahaa oo ka hormaaday sidoo kale waxa la arkay Mastuwana iyo Kylian Mbappe oo hadal yar dhaxmaray yiri
waa ku mahadsantahay guusha aa gaarnay innaba caadi maahan labadaanu isfahmay dhaxbixiska Mastuwana sidoo kale Mbemba dhaqaaqiisa iyo xawaaraha sare waxay ka saacidi kartaa Real Madrid seasonkan in wax badan ay ku guuleystaan La Liga Barcelona ay kula tartamaan Copa del Rey iyo Supercabana innaba caadi maahan haddii Supercaba ay dheeli karaan ay meel fiican ka gaari karaan Champions League meel iska dhigbo xawaayad tartamayaasha naadiga kaliya ee Gambia markii la sheego loo tiriyo waay sidoo kale Jose Mourinho oo mar wax laga weydiiyay ciyaaryahan ka saacida ma jira guulaha maanta ay ka gaaraysid kubadda cagta yes ayuu yiri waa Lionel Messi inta aan u bixin kulanka ka hor wuxuu ugu dhali jiray fikrado badan ciyaarta inay wax badan ka akhriyo dhaho war Messi ka hor imaanayo sidee wax yeesha falsafadna ee dhisha qaabna ay ku celisaa marka falsafad nooc walba ayuu ii diji jiray marka ay hor imaanayo iyo Jose Mourinho waa ka sidoo kale waxaa la soo saaray liiska xidigaha ugu qiimaha badan naadiga kubadda cagta Bayern Munich hadda suuqa meeqay ka joogaan Jamal Musiala ayaa hogaaminaya 140 milyan ayuu ka joogaa suuq kala iibsi ciyaartoyda kubadda cagta sidoo kale Nigel Olise ayaa booska labaad soo galo 100 milyan ku fadhiyo sidoo kale Harry Kane 35 milyan ayaa loo qiimeeyay Luis Diaz ka imaaday Liverpool 70 milyan ayaa loo qiimeeyay sidoo kale Buffalo Fitch ayaa asagana 55 milyan loo qiimeeyay sidoo kale waxaa la soo saaray liis xidiyo aan dheelin kulankii ugu horeeyay ee English Premier League naadiga kubadda cagta Chelsea safka hore line-upka intaana ciyaartay way ka maqneedaan leeyahay waxayna ku fadhiyaan 295.5 milyan intaana ciyaartay iska gado Chelsea yaba intaana hadda dheelina leeyahay kulankii ugu horeeyay waa Sterling Nkunku iyo Jackson sidoo kale Lavia Malakasai Vega sidoo kale Chilwell Disasi Batshuayi Colwill oo dhaawac soo gaar hadda iyo goolaayaan waxaa leeyahay safkii ugu horeeyay ma ahanba sidoo kale Alexander Isak ee naadiga kubadda cagta Newcastle waa ay kala dhamaadeen oo asigana go'aan ayuu gaaray naadigana go'aan ay gaartay waxaa leeyahay markaan waa markii la kala tagi lahaa asigana wuxuu soo saaray maadaama balamiya ay gasheen ay fuli weyseen wax walba oo dabeecadda dhexdeena ay ka lumeen waxa iskula joogna malahan markaana naadiga kubadda cagta Newcastle ayaa iyadana tiri wax walba aad tahay naadiga ayaa ka weyn xidigno muhiim ah ma fasaxi karno haatan marka naadiga kubadda cagta Liverpool ay garta hortaala hadii weeraryahanka la raadsan karaan iyo hadeesan sidoo ku imaan karaan wax walba dhici karo Eketika iyo sidoo kale Salah Gagbo weeraryahanka lama joogo Onigeera joogo sidoo kale Onige hadda ayaa horgoosh dhalinaya joogo Kiesa oo asin dhaawac iska waa arki doonaa marka waxay isku xali doonaan waxa leeyahay dalabkii ugu dambeeyay ay ka gudbi doontaa naadiga kubadda cagta Newcastle xidigeeda Alexander Isak 130 milyan lacag ay miiska saari doontaa hadii laga aqbalo waayna laba goor hore loo diiday mar la weydiiyay markii la bixinaa awaalmarinta xidiga sanadka ee Premier League ayaa Mohamed Salah loo xaday waxa la bal seasonkan waa season cusub ee saadaalnay ku guuleysay horyaalka Premier League waxa maleynayaa in Arsenal tahay iyada ugu cadcad naadiga number 1 iyada ayaa ayuu leeyahay waana dhagahadal oo wax walba fili karaan taageerayaasha kubadda cagta Arsenal waana arki doonaa I think Arsenal waa iyada ugu cadcad leeyahay hadda marka arki doonaa wixii ku dhamaadaan sidaas iyo amaana Allah hadii janaalka ku cusub fadlan subscribe noo saar muuqaalka dug soo gaaran like noo saar share gare oo la wadaag asxaabtaada